وعسران هذا وديارة وتبيا كاترسن إذا ما ذكرك جمهورية سوماليلاند أو كوسا دوينيا كلية السراكيش عبد الله عسكر يدرر ويني مدن مدح ويني كوسا دو madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad loogu fooladeynayo ciidamo tababar iyo carbis ciidan dhameystay oo ku biiray ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay ku kala tababarteen kuleedaha tababarada ee Dararweyne Sheekh Goroyo Cawl iyo Badar Wanaag kuwaasoo loogu talagalay jiidaha bari ee xuduudaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana madasha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku wehelinaya xubno kamid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida barasaabka gobolka Maroodijeex iyo mas'uuliyiin kale oo xilal kala duwan ka haya xukuumadda talada haysa taliyaha ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye Gaasnuux Ismaaciil Taani ayaa ka warramay tababarka ciidamada ay qaateen iyo waajibaadka laga rabo mudane madaxweyne ciidanka halkan jooga waa in yaroo kamid ah ciidankii faraha badnaa ee kulliyadaha Sheekh Badar Wanaag Dararweyne iyo Goroyo Cawlba ku jiray iminkana waxay diyaar u yihiin inay bari u kacaan xagga Sool intani Sool bay tagaysaa waxay nagu soo duulay Puntland iyo meelo badan oo kale iyo dad la soo adeegsaday oo gobolka ka tirsan dagaalada ka dhacay anagu waa xaraga dagaalamanay dadka waanu turaanay magaaladana waanu turaanay annagoo weerar nagu soo qaadan mooyaan weerarna kuma naan qaadin magaaladana waa tii aad amarkaaga ahayd ha laga baxo waan ka baxnay haddana dagaalkii muu joogsan waayay ninkii baxaya buuraha jinkaa loo birbiriyaaye waxaan la garanayn baa meesha ka socda madaxweynaha Puntland wuu cadaystay maalintii dhaweyd wuxuu yiri weerar baan ku qaadaya halkaa mudane madaxweyne arrimii way joogsan waayeen wakaa Puntlandna ay leedahay annaga dagaalamana haddaan markii hore xaraga dagaalamayna maanta xaraga dagaalamayna waa la isxiniya taabanaya oo runta la isku sheegaya nin walba waxay dhiishiisu u goysa ayuu leeyahay waxaan leenahay qolada reer Puntland labadeena seefood waa tii saawir noqota wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateye Fariid ayaa sharaxay ahmiyadda ciidamada qalabka sida ay ugu fadhiyaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad ku soo biirteen ciidanka qaranka oo ku suntan akhlaaq oo weligii lagu sheegin mid ku xadgudba xuquuqda aadamaha iyo sharafta maadaama yahay kala harsado maadaama yahay ka ilaalinaya sharafta iyo milgaha dadnimo ee Soomaaliland idinkuna waxaan Ilaahay uga baryaynaa ka habaabin oo noqotaan kuwa akhlaaq leh kuwa geesiyaala kuwa la harsado maanta xaalad baa taagan inagu la dagaalamayno dadka reer Soomaaliland ee xayndaabka Soomaaliland kamida kuwaas la rabaa inay difaacdaan waxaan haybta u wadaay waa kala qaybinta Soomaaliland idinkuna waxaa tiin kuwii ka hortagay ee la dagaalamayay baatii ciidanka ku soo biirtan waa ciidankaas sharafta Soomaaliland caddo ilaa waxa weeyaan tukarraq nimanka difaacayaati madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa bogaadin iyo hambalyo u diray guud ahaanba ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda waxaanu madaxweynuhu tilmaamay ciidamada tababarka carbiska dhameystay isla markaana waxa uu tilmaamay waajibaadka hor yaala waxaan aad u hambalyeeyaa dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka ee hal iyo habeen u xeegeen inay dadkoodu nabadgelyo ku seexdaan ku soo toosaan hantidoodu inay nabad gasho dadkeenu inay hore maraan ku wax baranaya ku baa mushtara ku beer qodanaya iyo ku banaan joogaba geesiyaasha ciidamada kala duwan ee magacyada badan leh ee ciidanka qaranku ugu xoog weyn yahay ee dadka noloshooda iyo nabadgelyadooda iyo mustaqbalkooda u heeganka ah ayaynu hambalyeeynaa oo u mahadnaqaynaa dhammaantood meel ay joogaanba ciidamadiina maanta tababarku soo xirmay waxa aad ku abtirsanaysaan ciidanka qaranka oo ilaa intii dalkan Soomaaliland jiray difaaciisa iyo gobonimadiisa iyo sharaftiisa
وصولي من أي إلى أي وحقوق السرايسان كسياشي يا سلام لما أنتود أي أقوى تستان وحكبت تقول سندتك إلى هاي سعر مسؤولية أمضة وتاجن يجوا إلى الدم قف يتوقيس كهذا الدم أمضة أو دم أي كهذا أو إيرانية إذا ما قرأت قف كوسو بيراوح أهريا نفتيسة يمال كيسة إنه إيرانيو قف كلا إنسو من هذا الكاب الشديس واحد فدر داريا للدفاع دين إن تكون غلطان ضدك إلى لسان وحيد ذلك الدفاعية ما يحكي لنا هو جيسك تاسي وده هو جريده mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa dur istaagay dagaalka magaalada laascaanood waxaanu madaxweynuhu ku baaqay baaq nabadeed dadka Somaliland waxay ugu baaqaynaa cid walba nabad ninkii nabadda diidana waa iska celinaa oo sida faacina dadkeena soo waxaan leenahay haddii caqli inuu la isticmaalayo wada hadal inuu wax ku xalin karaa dadka shacabka rasuul u tura oo ka daaya qax iyo colaada waa mid Somaliland iyo soo ka dhaxay dal walba waa jira khilaaf gudiisa dal walba dadka jooga waxay kala tirsadaan sool gaasoo waxaan leenahay wixii waa khilaaf ka dhaxeeya Somaliland iyo gobolkeena diyaar baan u nahay inaynu ka wada hadalnimo walaalnimo khasaare intii dhacday ku filan in aynu nabad ku xalaabaan ku baaqaynaa wixii wax garada ee nabad doonaya qofka aan nabad doonayn ee khasaaraha ku socda waa qof aan sool dadka ku nool u talinay ee baabooda doonaya Somaliland inuu lugta juuraa waa doonaya kaana waxaanu u leenahay talo ciidan oo adag oo dalka badbaadsan markay taas kala dhacdo oo meel walba taagan u diyaar ciidanka Somaliland meel uu joogaba wax yeelayn maayo qof Somaliland waanu ka xuyay khasaaraha gudaheena ee ay wadaan dad ku soo guuray Somaliland Laascaanood oo aan u turay uu kow ka yahay Puntland oo laba tahay qaybaha shabaaba ee imika ku sii fidaya inay ku balaadhaan ay ka mid tahay dad reer sool ah oo ay tan ku qadan tahay oo dadtooda aan arkin ninka la xad burbursan Laascaanood ninka dadku ha qaxaan leh ninka dadkooda qaxinaya ninka loo soo diri maayo hay'adaha ay baartay caawinaya ninka nabadda diidaya reer soole anigu caqliga asoo marin maayo mid soo dhisay yahay ee waa mid duminaya nimanka culimada sheeganaya ee Nairobi hab qabiil uga soo hanjabaya ee hab qabiil culimada sheeganaya kuna soo degdegaya dagaal waa mid cusub waa arin ugu cusub iminka culimada Nairobi ka soo hanjabaysa oo dagaal ka soo wada oo reernimo soo dagaalamaysa waa mid subxaan Allah ko weyno ah culimada soo lugu Iran halkiina saad barooqasin iska joogaan madaxweyne biixi ayaa fariin waayeelnimo u diray maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland markaa Puntland waxaan kula talin lahaa ra'yiga qaladka socon maayo haddaad ku xalinaysa mashkilad gudaha oo haysato oo gudaha balaaya ka taagan tahay oo sidoo ku xalin Somaliland ku duulaya Somaliland ku soo duulitaankeeda khasaare badan guul kala kulmayso ogow هو أنت لو شيء واقعي الشباب هي بوتلاند أو الصومالية كبيرة أو علم عصور أدوه عصور كامتي أو له سقبيلة أما هيبقى أيام وصلنا الدم ده أو الصومالية راحين صوماليا راحين مجا هيبد تاسمت سورة كذي سماها كسورة كذي ما يسوق قرى حدود الصومالية كما سوسة جلسة waxay ka soo sagaraysaa haday soo sagarayso Afrika dhan baa arinta dib loo walaaqay waayo Afrika dad aanu xad ku qaybin ma jiro dawlad kontorka dawladeed ee Afrika mid aan qabaa'ilkeeda xad qaybin ma jiro Afrika markii ay xorriyadda qaatay dhexdeeda waxay ku heshiisay in aanay dib isu qasmine ay xadalka ku heshiyaan laakiin dawladda walaaltinimo iyo wax qabsi ku noolada ay hayaan marka Soomaaliya qaybta kamida Puntland u hirgeli mayso waxaan ay ku hadlaysaa waxay soo kordhinaysaa khasaare
khasaare iyada ah khasaariya dibdhac bay soo wada madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa yidhi soomaali oo dhammi ilaa 19 way degi lahayd waxay ka degi lahayd way kala gar qaadan lahayd hadday duntay tii inaga dhaxaysay wanaaggu wuxuu ahaa inaan mid walba gaarkeeda wax u dhisato Soomaaliland waa dhisatay ilaa Soomaaliyadii Talyaanigu goysanayay iyo Soomaaliya Ingiriisku goysanayay ilaa ay kala baxaan oo iyagu kala baxaan horta Soomaali sadigi mayso xabar sadigi mayso Kismaayo sadigi mayso waayo waa geedi gurac loo raray marka bashkaadu waxay fadhidaa in ay labadaas sababta meel kale taana way ka dagaadayaan qolada koonfurta wari way ka wareegayaan